aad baad u mahadsan tahay dawladda nabad iyo nolol siyaasadeedu waxa weeye kobcinta dhaqaalaha marka tayota oo kaliya maaha kabaniyo badan oo waaweyn oo international ayaa khadka ku soo jira waxaan ku rajo weynahay in wax soo saarka Soomaaliya suuqyo badan sidii hadda Turkiga aan ka sameeynay la geeyo iyo wadamada dariska marka maadaama siyaasadeeda koowaad ay tahay kobcinta dhaqaalaha waxaanu sameynay shuruuc furfuran oo soo jiidanaysa maalgashiga oo kamid yahay foreign investment law oo kamid yahay sharciga shirkadaha oo hadda golaha wasiirada ka gudmo baarlamaanka ku socda marka waa siyaasadda dawladda waxaanu doonaynaa inaan bedelno nolosha adag ee Soomaalidu ku jirto dhalinyaradu shaqo hesho tayota kala maanta dah furteen adiga dah furay maxay Soomaaliya ka sameynaysaa Soomaaliya waxay ka sameynaysaa faa'iidooyinkii badnaa meesha laga sheegay marka horeysa waa baabuurta dalka laga wato kabaniga ugu badan weeye waxaana lagu soo gadan jiray si liidata oo iyadoo Japan lagu soo isticmaalay oo haddana Imaaraadka lagu isticmaalay gacanta saddexaad ayuu Soomaaliya soo gaari jiray hadda wuxuu soo gaarayaa isagoo brand new oo cusub ayuu soo gaarayaa isagoo wata 3 sano oo warranty oo wax alla wixii ka halaaba kabanigu bedelayo waxa loogu sameeyaa maintenance ayaa loogu sameeyaa waxa loogu sameeyaa repairing oo free ah inta 3 sano gudaheeda wixii ka dambeeyana repairing quality leh marka wax weyn ayuu ka bedelayaa shaqo laga helayaa shaqo abuur bay sameynayaan marka wax weyn ayay u kordhinaysaa Soomaalida wasiir ma waxay furtaan xaafiis mise waxay furtaan xaafiiskii weynaayo adeegii laga helayo gaadiidkii halka yaal ma xaafiiskii bay fureen gaadiidkii halka laga helayaa workshopkii lagu repair gareynayay oo lagu hagaajinayay ayaa laga helayaa marka waa full xafiis buuxa weeye oo Toyota leedahay weeye sidaas oo kale waxaanu kala ballanay gobolada dalka ee nabadda iyo gobolada dhan inay geeyaan marka waa bilow aan annagu wasaarad ahaan iyo dawlad ahaanba aad ugu faraxsannahay in kambaniyadii waaweynaaye adduunku ay Soomaaliya yimaadaan kuwa kalena dhawaan baa la arki doonaa insha Allah furfurnaanta ganacsigu suuq xoraba ku tiirsanaya marka SKA bay soo maraysaa SKA Toyota hadda hawshooda fulinaya suuqyadii Soomaalida u furnaayay faraha badnaayay qof walba uu marka hore jabah ka soo iibinayay miyay wax dhimi doontaa والله وجهك كواد أي كمبانية إسكاشانيان وهالكن وجسوا هرية أو international وية لكن ويبلغ قادين إني مركب الركتة جناحسية شوكتة جناحستها الله هذا شيء مركا مقالة أيه اللي جيني حفيز برانشيس بالغ فريا هالكن ما أنت بانكوسا ما إن حفيز كلا فرمويه ولا فريا وح أو كدمان تويوتا إني حرونتي دي أي سوماليا كلها هنشرتي دي بسوا عشته مجرو marka waxaan ugu baaqaynaa sidoo kale kambaniyada adduunka iyo ganacsatada Soomaaliyeed hadda ganacsiga xoog gala ku haysta banaanka in dalkii hadda uu nabad yahay in dalkii maalgashi uu diyaar u yahay inay dalkooda dib ugu soo noqdaan maalgashada wasiir harbeenad waxar dul istaagto Toyota wakiil waxa bay ka tahay Soomaaliya cid walba rabta kambaniga Toyota gaadiidkeeduna waa inay soo maraan Toyota Soomaaliya inay soo maraan weeye qofka waxa loo dalbayaa sidii hadda sharaxayeen modelka uu doono ayuu dalban karaa midabka uu doono ayuu dalban karaa cid kasta xataa qofkii banaanka ka gata wuxuu awoodaa inuu halkan ku soo transfer gareeyo warrantigiisa oo yiraahdo Toyota Soomaaliya ayaa warrantigayga igu gudbiya marka xafiiskii oo buuxa oo Toyota Soomaaliya sida adduunka kale ay uga furan tahay oo buuxa weey dhawaan waxa suuq qeynaysay wax soo saarka Soomaaliya gaar ahaan khudaarta waxa ka soo baxay waxa weeye Soomaaliya waxay dhiig baxaysay 27 sano oo inaynu wax banaanka wadamo badan oo adduunka aynu lacag badan geynaa wax ka soo gadanaa iyadoo iyagu aanay waxbayna ka qaadan taasoo aan ahayn habka ganacsiga adduunka ku socdo sidaas maaha way jiraan wadamo dhifaho ama xoolaha loo iibgeeyo ama waxyaalo yar oo beeraha ka soo go'an loo iibgeeyo laakiin wax oo dheeli tiran maaha marka wasaaraddeeda iyo dawladdu waxay ku mashquulsan tahay inay dalalka aanu horta marka hore inaan xoojino wax dhoofinta Soomaaliya in wax laga dhoofiyo Soomaaliya inaan xoojino siyaasadihii furfurno quality-ga waxyaalaha Soomaaliya ka soo baxay standardkii aanu hagaajino wadamada aanu wax ka soo gadanana ku qancino inay iyaguna wax naga qaataan marka Kuwait baan geeyay khudaar iyo wax soo saar Soomaaliya Turkiga waxaanu geynay hadda annaka iyo rugta ganacsiga waxaanu geynay in ka badan 50 karton waxyaalo badan oo Soomaaliya ka soo baxa iyo waxa beeraha ka soo baxa iyo kalluunka ay ku jiraan marka siyaasadda dawladda maadaama aan sidaan hore u sheegay tahay kobcinta dhaqaalaha wuxuu ku kobcaa in uu la badiyo
waxaa natiijo ka soo baxay Kuwait iyo Turkiga waxaa ka soo baxay in adduunkii ku qancay wadamadii aanu tagnay iyo maaha Kuwait oo kaliya waxaa ku shirsanaa wasiirada ganacsiga iyo warshadaha ee wadamada carabta ku shirsanaa in dalalkii oo dhammi ay ku farxeen in Soomaaliya soo noqotay in Soomaaliya wax khayraadka intan dhan iyo barwaaqadan ay ka soo baxayso waxayna ballan qaadeen inay maal gashadaan dawladda Turkiga oo naga dhaxeeyo heshiis weyn oo iskaashiga ganacsiga iyadana saasoo kale aanu u tagnay 100 shirkadood oo Soomaaliya baan geynay xaggaasna in leega ka yimid marka kambaniyadii baa wada hadlay waxaanay daba socotay wada hadal dawladuhu hore u galeen oo sidaa ku heshiiyeen marka waxaanu rajaynaynaa waqti kooban dalkan inuu barwaaqo noqdo dhibaatada iyo gaajada ka baxo ganacsadaha Soomaaliga dhibka haysto waxa waaye dhinaca baasaboorka waxaad ogtahay in ganacsatada dhammaan ay wataan baasaboorro ajaanib kuwa ugu badan ha wataano baasaboorrada dawladaha dariska Ethiopia Djibouti ama Kenya marka baasaboorka Soomaaliga oo tayo yeelanna ganacsigu saameyn badan yeelan doono sababtoo dalka la macaamilaysa maxaa la qabto aad iyo aad baad u mahadsantahay inaad su'aasha ay weydiiso horena mar baan uga hadlay dhibaatada ugu weyn ee haysata weeye waayo Soomaaliya dalal bay la baac mushtaraysa adduunkuna wuxuu ku qaybsadaa maxaad iga gadatay aan wax ka gatay marka haddii baasaboorkii Ethiopia yahay haddii uu Djibouti yahay haddii Mareykan yahay haddii Ingiriis yahay marka Soomaaliya uma diiwaan gashana nin Mareykan wax ka gatay ama nin Ingiriis wax ka gatay waxay dhahayaan halkii Soomaaliya wixii lagu soo daldalay oo dhan ma muuqanayaan wax yar oo Soomaali qaaday baa muuqanaya marka taas siyaasad baanu dawlad ahaan ka leenahay ugu horeyn dadka Soomaaliyeed inay baasaboorada qaataan duruuf jirta ku kaliftay laakiin today maanta waa isbedeshay waxaanu heshiis kula jirnaa safaaradaha aanu xiriir kala leenoo dhan hadal baa noo socda oo Turkiga ka mid tahay oo meelaha wax laga Hindiya iyo China iyo wadamada dariska ah oo alaab badan iyo qaad aan ka soo qaadano kulligood wada hadal baa noo socda inay aqbalaan ganacsatada Soomaaliyeed annaguna waxyaalahan dhaqan xumada ah ee Soomaalidu tahriibta iyo waxaan ay dhahdo aanu ka celino oo ganacsatada liiskooda import exportiga aanu dhigno safaaradda deedna aanu siino fiisa 5 sano markaasa Soomaalidii loo diiwaan gelinayaa inay wax gadatay annagana inay wax naga gateen ay naga aqbalayeen marka ninkii inta diida markaanu dhamayno ee Turki ka dhamayno ninkii diiday Amerikaan ku baxa waxa annakii Amerikaanka naga dhaxeeyaanu kula dhaqmayna hadduu doono Soomaaliya af Soomaaliya ku hadlo we don't care baasaboorka ayaanu tixgelinaynaa wixii ganacsi annakii Amerika dhexdeeda yaala annakii Ingiriis dhexdeeda yaala baan kula dhaqmaynaa haddii uu qaadan waayo baasaboor Soomaaliya